xarun xabsi u eg ma ka furnaan karto magaalada muqdisho shaqadeena waaye mana ka aamusi karno maxkamadda rafcaanka xabsi wax ku saabsan oo dad lagu hayn karo sharciga tilmaamay sharciga meel uu tilmaamin cid qofku hayn karto malahan haddii ku dhintana mas'uuliyadiisa asaa qaaday qofkaas waxaan rabnaa hadday arrimo kala qabanayaan ee madrasa camal tahay ha yimaadaan waxay qabtaan iyo profilkooda ha keenaan ha caddeeyaan shaqadooda dadka ku jirana waa la diri doonaa tirakooba lagu soo samayn doonaa waana la soo fiirin doonaa arrintaas waxaan rabaa in booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga kale inay arrintaas isha ku hayaan hadday jiraan xarumo xabsi u eg oo dad lagu hayo kiis waxa soo maray maxkamadda meesha kale oo aan rabay inaan haddana sidoo kale faro meelaha quraan saarka oo dadka lagu quraan saaro oo dadka qaar ula dhaqmaan si aad u foolxun oo garaacis ay ku jirto qofkii uu xanuunsan yahay waa la sii garaacaya kiis waxa soo maray maxkamadaha intaan hadda aniga joogo kiis quraan saar ah oo qof ku dhintay marka qofka in la garaaco heer ilaa uu ka dhinto uu gaaro waa wax ka baxsan qaanuunka ka baxsan waa ma yeeli doono in waxyaabaha sharciga ka baxsan la sameeyo marka waxaan rabnaa xarumahaas quraan saarkana hadday jiraan iyo waxay qabtaanba annagoo ka kaashan doono maadaama quraan iyo waxaas ay ka shaqaynayaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta annagoo la kaashan doono waa inay ayagana yimaadaan ay waxay qabtaan iyo inta ka shaqayso iyo ruqsadda ay haystaan waa inaan aragnaa waxaa muuqato kiiska xabsiyada u eg wuxuu keenaa conflict ka dhasho waalidiinta iyo ilmahooda dhexdooda wuxuu keenaa markii ay xumaato arrintaas in loo saariyo dowladda Soomaaliya oo la yiraahdo ilmaheena ayadaa naga baadiyeysa amba naga dhumisa waxyaabahaas oo idil marka waxa looga bixi karaa inay horta waalidiinta raacaan sharciga cunugaaga haddii aad maaro u weysid maxkamadda degmada furan geey waa la tarbiyeynaa iskuula ka furan xabsiga dhexe waa la barbaarinaa waxbaa loo sheegaa 6 bilood 5 bilood markuu waana qaato soo cesho iskuulkaaga geey meel furan uu banooni ku ciyaari karo oo ma aragtay quraan uu ku baran karo masaajidkii lagu tukanayo leh cuntadooda leh warshad wax soo saar leh ayaa ciidanka asluubta qabaan marka looma baahno villo intii lagu qorto xarunta dhaqan celinta in qofka bii'adii uu ku noolaan lahaana in meesha ku oolay in lagu dhibaateeyo ilmaheena Soomaaliyeed raalligan kama naqanayno hay'adaha amnigana waxaan faraa inay arrintaas isha ku hayaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada waa mas'uuliyadooda inay soo sheegaan xarumaha ka furan degmadooda haddii ay imaan waayaan tilaabo annaga ka qaadi doono waana mahadsantihiin waxaan rabaa in arrintaas loo qaato si rasmi ah loo qaato oo sharciga aan ka baxsanayn aan lagu dhaqmin